ما قرصومين دولة إثيوبيا الدرس كأنها وحي شاكتي قب ما أيدين سوفرين ما أيدين إذن لا تشمين إذا ورسمين وحسب ما يستين وأذيك دولة دين أدلين دولة معها دول كان نص أنا قاعدني ولا لا أنا درس أنا نص كان محقا يا ماركت ها شلي درس معنا النقون ولقي إنه ماشي أنا كلا دقنين هدي ما أنت دول لسكو شيء أنا جيتها أنا كوشيغانو إثيوبيا أنا جيتها إثيوبيا أنا دول كوشيغانو أيضا أنا دول كوشيغا تماها نقومنا شيغان كرتو نقوم شيغا كرتو أنت أنك شيغنا عدوها هل وشباب ما أنت والله وأودنا شعب يومات جرتان هاي شباب كانوا واسكعلينا دولمات كدي بدك يبان واسكعلينا أنت بوا سقفلنا ننك قبا إنه سقفلنين كك عن لنا هردو هاي ساه وسقفلنا وأنا سقفلنا هنا marka niman muxuu ahay gobnimadeeni aan aqbal saneen oo dhulkeenni nusaan qaadanaya leh shacabkeenni waa kala qaybinaya nusna waa saasaati nuska kalena waa saas na kala dhahayo asaga waa cadow iska dhicin iska celinuna mudan yahay waana iska celi jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maanta waa iska dadkii aan ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodii aan nahay واسك عيد جرني واسك عاب جرني وانا كجوريس جرني وانا كجوريسنينا وانا اسك عابنينا dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ha ku kadsoomina walaalaan nahay darisa idan nahay saanaan nahay wanaaga soo keen jiro kana soo keen jiro mugaansannaha wanaag soo keen jira mugaad xeradeeda soo gasho oo xoolahayga qaar inaad la baxda aad rabto oo dhulkayga qaar inaad goosato aad rabto oo shaatiga inaad iga siibto waa ka qaawin xagga ta saaxiib maahin walaalana maahin Ethiopia waxaan leenahay dhul ay leedahay waa weyn yahay waa u fiican yahay waa u barwaaqaysan yahay ha ku ekaato dhulkeeda ha ku ekaato wixii intaas ka soo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaan aan macaamilayno waa wax adduunyada dhan ay ku dhaqanto waana ku dhaqmaynaa ha ka waantoobaanaan leenahay Ethiopia in ay marna dhulka soo haweysto dadka Soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoola masaalix iyo faa'iido raadinayo yaan lagu kadsoomin dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan qof ka dareynayana saaxiib kulama noqon karo saaxiib kulama aha meelaha ayagoo warwareegaya la ii sheegayo oo meelaha qaarkood dad u soo dirdiray oo xuduudda ballaaran aan leenahay meel ka soo galgalay oo dadka la hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil military iyo waxa la sheegay yaan lagu kadsoomin yaan lagu sirmin u maleyn meen ma jirto ninkaas socdaahi ee ku imaanaya dhulkanaga u socdaa ogow shabaab yaa labadii sano la soo dhaafay yaa la diriray shabaab Soomaaliya la diriraysay dadka Soomaaliyeed la diriray dhulka laga baneeyay dadka Soomaaliyeed ka baneeyaa ka xoreeyay shabaabaan kula xoreynayaan lagu dhihin cadawaan ka celinayaan lagu dhihin Soomaali kale cadow inta lagaaga dhigo lagu tilmaamo lagu yiraahdo kaasa cadow ku ah anaana ka celinayaan lagu been sheegin Soomaali cadow waa ma jiro digniintaas marka dadka Soomaaliyeed aan u dirayaa dhaqdhaqaaqa socda la iska ilaaliyo waada iyo propagandada cadowga uu leeyahay la iska ilaaliyo duulimaad ma ahin laakiin in lagu soo duulo ma ogolaanayno ha ku kadsoomina ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan baaq u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waa maalintii midnimada waa maalintii la midoobay waa maalintii hal noqon waa maalintii ra'yiga laga midoobay xagga ra'yiga dadku walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waxa idin kala saarnaado waxa ku sugayo oo biri dambe iyo bisha dambe iyo sanadka dambe iyo sanadaha dambe aad xalli karto iyo waxa aan ku sugaynina ku kala saarnaadaan doodaha dhaxdeena yaalo sidaana wanaagsan maya sidaana ka wanaagsan
waxaana sidaan si ka wanaagsan oo loo suubiyaa jirta ah waa doodaha dhexdeena yaal horena way soo ooli jireen haddana way sii ooli doonaan waana ka doodaynaa isku maquuni mayno isku dili mayno isku dardari mayno haddii alla yidhaah Soomaaliyey dhulka haddowna dhaafo noo soo noqon maayo dhulku haddowna dhaafo noo soo noqon maayo maanta uu gacanteenna ku jiraa yaanuuna dhaafin war qof kastoo Soomaali ahaw da' kasta ahaw maqaam kasta lahaw meel kasta caalamka iyo Soomaali gudaheeda uga noolaaw waxaan maanta isu diraynaa isfaraynaa waxay tahay carrada dhulka inaan ilaashano oo aanan ku kadsoomin beenbeenta iyo baqlada waxaan rabaa si gaara inaan farta ugu fiiqo qurba joogta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool waxaan leeyahay walaalayaal kuwa dalka gudihiisa ku nool hadday tahay dawladda iyo ciidamadeeda iyo hay'adaheeda iyo hadday tahay shacabka oo ay u soo baxeen nimanka la yiraahdo macwisley difaaca mujtamaca difaaca bulshada iyo deegaanada la yiraahdo u soo baxeen doorkoodii way qaateen waana u taagan yihiin saacadda jimcada ah ee masaajidka dhexdiisa aan ka hadlayno wiil Soomaaliyeed xabad ridayo wiil Soomaaliyeed dhufeys ku jiro oo saas cadow hortiisa jooga ilaalinaya wiil Soomaaliyeed ku sii socda meel cadow joogay oo maxaa buraashadiis inta biyo ku shaqto ku sii lugayna ku sii socda walaalaha qurbaha jooga waxaan leeyahay Soomaaliya markay qatar gasho waa adika waa u istaagi jirteen waa u istaagi jirteen marka cadowna soo haweysto waa u istaagi jirteen oo ay ugu horeyso kuwa maanta na haweysanayo shalay waa u istaagteen waa u midowdeen waa u taagneedeen maantana meeshii shalay joogtaa mas'uuliyadda dalka idinka saaran waajibkeedii yaan idin xasuusinaynaa waa ogtihiin inaad u istaagtaan oo aad waxa ay idinka mudan tahay aad Soomaaliya dhulkeedu idinka mudan yahay dibadaad joogtaan dawladaad joogtaan diblomaasiyadaad xad ku leedihiin dhaqaalaad dalka aad xad ku leedihiin iyo abaabulkiisa mawaaqiftiina adikoo midaysan inaad soo istaagtiin shaarica ayaad xaq u leedihiin waxaa idin leeyahay bannaanka u soo baxa meel kastoo caalamka aad kaga nooshihiin muujiya dalkeennu in aan la qaadan karin haddii alla yidhaah markay Soomaali qatar gasho waa la idiin baxsan jiray qurba joogta Soomaaliyeeday maantana waa maalintiinni ay hal idiin baxsado ayaan leenahay wiilka Soomaaliga ee geel jiraha ah haddii uu qab iyo gobnimo uu raadiyay oo u dhintay oo u taagan yahay wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ee Yurub iyo Ameerika iyo bariga Afrika iyo khaliijka iyo caalamka meel walba ku nool Australia New Zealand caalamka meel walba ku nool wiilka Soomaaliyeed ee geel jiraha ee macwisleyda ah kama dareen iyo ogaal yarid kama aqoon yarid kama maxaan ku raadayay dal jecel yarid dawladda iyo shacabka Ethiopia shacabka Ethiopia annaga wax naga dhaxay malaha laba shacabaan nahay darisaan nahay waligeena ahaa jirnay barino ahaan doona qowmiyadaha Ethiopia kala duwan ayaga dib qabo dibkooda ha xalistaan Allah u fududeeyaan leena dawladda Ethiopia waxaan ugu baaqayaa taariikhdii 600 sano soo jirtay ee Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaysay ee cadaawadda ahayd ee isdilka ahayd ee soo gabagabowday 1990kii markii dawladda Ethiopia ay duntay dawladda Soomaaliya ay duntay Soomaaliya waxay u dhaqaaqday taariikhdaas inay meel dhigato wanaag iyo diris wanaag iyo maxaan ku raad qalbi samaan ay kula dhaqanto Ethiopia nasiib darro maanta waxa dhacday dawladda Ethiopia taariikhda boggi taariikhda aan laabnay 30 iyo dhowr sano ka hor inay dib u soo rogtay soo celisay ay u muujinayso dawladda Soomaaliya cadaawad maslaxadda aan ka wada shaqeyn karno iyo niyad wanaagga aan wada qabi karno maxay tahay marka dawladda Ethiopia ay calan si jid kala taagan tahay leedahay waliba may waa kala madax banaantiin maanta Soomaaliland waa madax banaan tahay ay ku doodayaan bari ay ku doodi doonaan kuwa kale maalinta dambe maxaa banaadir madax banaan ayagoo dhahayo yaa ay imaan doonaan balaayo geesa la qabtay leedahay
dib la qabto ama sayn la qabto male Soomaaliyay dhaqanka Itoobiya maanta ka soo muuqdaayo waa balaayo geesa la qabtayna leedahay geesa aan ka qabanno duulimaad kuma ahin uma soconno lama dirirsanin laakiin kama yeelayno ha ogaadeen ma dhacayso inta wiil Soomaaliya uu nool yahay oo socdo dhulka Soomaaliya in qayb kamid ay baxdahay ma dhacayso hal hayska ay not an inch hal inch xataa ma ogolin yaa naga wada dhaba kulligan meel kasto caalamka uga noolnahay laakiin darajadu waa dagab la isla siday Soomaha dagab weyn oo culus oo la isla siday hadii dhinaca laga deeyay adigu miyaad hayn kartaa kaliga ma hayn kartid marka waxaan leenahay waa saas intii aan wanaagsanayn oo rajada fiican iyo wanaaga iyo diris wanaaga iyo spiritka yaani aan qalbigaas wanaagsan aan qabnay wixii aan sameeynay oo dhan inaan intaan ka guurno cagsigeeda aan sameeyno adiina lagu arko Soomaaliduna ha ogaado caalamkuna ha ogaado ayaga nagu kalifay maanan dooran anaga cadaawadu ayagay ka timiday duulimaadka ayagoo ka yimiday dhulka la qaadanaya ayadoo ka yimiday ma dhicin waa taa hadda sheegay 600 sano ay dhici weyday Itoobiya inay dhul Soomaaliyeed qaadato 600 gumaysiga noo luga qabtay dhulkeena qaarsi laakiin Soomaaliya dawlad ah ma dhicin 63 sano la soo dhaafay inay hal mitro Soomaaliya kamid xoog ku qaadatay Itoobiya iyo xeelad ku qaadatay intaba ma dhicin qarniga 20-aad ma dhacayso bas ayaga waxaan ugu baaqaynaa dib u fiirsada gadaal u fariista taariikhda dib u noqda akhriya wax aan kala nahay ogaada markaas kidibaan aad muxuu miirku idin soo noqonaya dhulaa la qaadanaa mugay timaado Itoobiya waa ku siran tahay aan leeyahay waa ku siran tahay doodaha dhaxdeena ka socda iyo waxa media aan ka sheegnay iyo qaylada aan meelaha isku qaylinayna iyo waxa hadii ay u aragtay inaan qaybsano oo kala tagino dhulka qaarkiis aan dhiibi karno waa ku sirantihiin dad dimuqraadi ah oo dabiiciyan hab nololeedkooda dimuqraadiyad yahay waa is eedeyn karnaa waa isku farafiiqi karnaa laakiin xuduudaan leena aanan ka gudbin dawladnimada gobnimada waa wiilal Soomaaliyeed maalin kasta dhiigooda u baxaya inaan dawlad noqono ka dhiigooda dawladnimada u baxay iyo kii hawsha waa laga hayaa lahay meel fadhiiba maanta dhulka la qaadanaa hadii la yiri dhiigooda banaanka wada taagan yahay dawladda Itoobiya intaas ugu baaqayna shacabka Itoobiya anaga dood idaco uma qabna dawladda Itoobiya ugu baaqayna shacabka Itoobiya ayaga dawladda Itoobiya ku dhaxdhiban laakiin ayaga dalkooda iyo danahooda ayaga yaqaano sida ay u xalisanayaan anaga keenan naqaana Itoobiya dhulka naga ha ka leexato caalamku ogow caalamkana waa u baaqayna Itoobiya dhulkeena ha ka leexato wali inay ka waantoodaan qabnaa waray joogtaa ficil yaani ku darin maanta waa isla warameena ayaguna waa warameena annagana waa hadleena ayaguna hadleena annagana waa hadleena hadal ay joogtaa war ay joogtaa maalintay ficil hal talaabo oo ficil ay dhulkeena u soo qaadaan 2 iyo 3 iyo 4 qaadayna ayaguna ayayna ku kadsoomin nama eedi karaan biri caalamkuna nama eedi kara biri dawladda Soomaaliya maxay go'aanka noocaas u qaadatay caalamkuna nama dhigi karo ayagana nama dhigi karaan waxaan kale halkan uga mahad celinayaa dhammaan dawladaha caalamka ka tirsan iyo ururada caalamiga ah ee dhowray mabaadidooda asaasiga ah ee Soomaaliya ku garab istaagay muxuu ahaa qadiyadan dulmiga ah ee lagu hayo aadan ugu mahad celinaa dawladaha saaxiibadan u mahad celinayna ururada Soomaaliya ee ka tirsan tahan u mahad celinayna kuwa wali aamusanna waxaan ka rajaynaynaa inay ayagana mowqifkooda cadeyn doonaan Soomaaliya maanta waxay taagan tahay mabda'a caalamiga ah ee maxaan ku raday ururada ugu hoose igadka bilow African Union ku geey jamciyad qurumaha ka dhaxaysa geey maxaan ku raday jaamacadda Carabta geey ururka Islaamka geey muxuu ahaa East African Community geey dhammaan waxay ka mid yihiin dalalka in la ilaaliyo sovereignty-ga territorial integrity-ga iyo maxaan ku raday unity of the people in la ilaaliyo waa laga midaysan midnimada dadka midnimada dalka iyo deegaanka iyo dawladda in la ilaaliyo oo dalna dalka kale saddexdaas aan ugu xadgudbin dal kale waa la isku wada raacsan yahay waa mabda caam ah oo dunida dhacayso kuwa laga gabaday oo wali sheegila waa rajaynayna inay sheegaan
kuwii sheegana aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin waa u mahad celinayna dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay tulad geelahoo dhacan baad toogasho u bareertaane ma dhulkoo dhan moo tagaybaa nin dhagax u tuureen maanta meeshay taagantahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.